رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat اlanwaar. waxaa noogu soo dambeysay aan ku dhex jirnay khaswadii iyo duulaankii khaybar iyo sida arrimooyinkiisu ahaa. waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa khaniimadii khaybar iyo sidii markaa loo qaybiyey. qismatu khaybar, qismadii iyo qaybintii khaniimadii khaybar la qaybiyey. walamaa markii xasala alyahuudu, yuhuuddu ay heleen cala alamaani, ammaan ay markaa heleen, ammaan markuu u sugnaaday, jaa-uu waxay la yimideen biiqtiraaxin jadiidin, iqtiraax cusub, fikir cusub ayay la yimideen iyo arrin markaa cusub. qabla an yatima, intuusan taam noqonin ka hor, jalaa'uhum raritaankooda. in meesha laga rara ayaa go-aan lagu gaaray intii aan go-aanka la qaadanin ka hor uusan taam noqonin. iqtiraax iyo arrin barnaamij cusub ayay la yimideen. qaaluu waxay dhaheen, yaa muxammadow, dacnaa na dhaaf, fii haadihi alardi, dhulkaa nooga tag, hanaga rari, nuslixuhaa, aan hagaajine, annagaa idiin hagaajinayna, wanaquumu waxaan u istaagaynaa calayhaa, korkeeda inaan idinkaga shaqayno. annagaa beertaan idinka naqaana timirtee aan idinkaga shaqayno. fanaxnu annagaa aclamu bihaa, idinkaga aqoon badan minkum xaggiina. warintood wanuctiinaa, waxaadna siinaysaan nisfa maa yakhruju minhaa, wixii ka soo baxa nuskeeda oo min atamri timir ah, iyo wasarci, zarci abuur wixii soo baxa ah. annagaa ka shaqaynaynee nus wixii soo baxa na siiya. faradiya bidaalika, raalli buu ka noqday nebiga arrintaa. calaa an yujalliyahum, inuuna rarhayo ayuu u sheegay, minhaa khaybar xaggeeda, mataa shaa'a, xilligii uu doono ka shaqay buu yidhaahda. nusna waan idin siinaynaa wixii soo baxa, laakiin ogaada xilli allaala xilligii aan doonno ayaan markaa idinka raraynaa. cizadaasuu lahaan jiray islaamka, sharaftaasuu islaamku lahaan jiray. xilli allaala xilligaan doonaan idinka raraynaa. fabaqow calaa daalika, arrintaasay baaqi ku noqdeen, arrintaasay ku baaqi noqdeen, xataa ajalaahum, ilaa uu raray cumar ibni khadaab radia allaahu canhu. xiina wakhtigii salakuu ay qaadeen طariiqa ashari, waddo shar ah, iyo waalkhubti mid xun. waddo khabiif ahoo xun ayay mareen, waddo shar ah ayay qaadeen. kadibna cumar baa buriyey radia allaahu canhu. waqasama, waa qaybiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam khaybar, haniimadii khaybar, calaa 36 sahman, 36 sahmi oo qayb ayuu u qaybiyey. kullu sahmin, sahmi walbii qayb walba, majmuucun, waxay ka koobneed 100 sahmin, waa 100 sahmi. 100 sahmi ah ayuu markaa ka koobnaa. facazala, wuu soocay nebiga, minhaa xaggeeda, annisfa, nis ayuu ka soocay oo dhinac u bixiyey. wahuwa nisku wuxuu noqonayaa 18 sahman, 18 qayb. linawaa'ibi almuslimiina, muslimiinta culisyaalkooda si wax looga qabto.
danaha muslimiinta in wax looga qabtuu 18 qayb uu u soocay waa nisfi sahmiye. waqasama rasuulku wuu qeybiyey annisfa albaaqi, nuskii soo haray wuu qeybiyey. wahuwa aydan nuska kalena asagana wuxuu noqonayaa 18 sahman, 18 qayb. cala alguzaati, nimankii duulay ayaa markaa loo qeybiyey. guzaadkii iyo dadkii dagaalka ku jiray fa acطaa wuxuu siiyey nebiga lilraajili, ninka lugta ku dagaalamay sahman, 1 qayb. wa lilfaarisi, faariskana wuxuu siiyey 3 ashumin, 3 qaybood. ninka faraska ku dagaalamay 3 dhag baa la siiyey. ninka lugta ku dagaalamayna 1 qayb. sahman qayb lahu asagaa iskale ninkii faraska ku dagaalamay. wasahmayni 2 qaybna lifarasihi, faraskiisa iskale. oo faraskii calaf iyo daaq buu u baahan yahay. wa kaana alfawaarisu, nimankii fardoolayda ahaa waxay ahaayeen oo ay ka koobnaayeen 200. fasaarat lahum waxaa u sugnaa 6 ashumin, waa 6 qayb. 6 qayb marka 600 bay noqonaysaa. waalrajaalatu, luglayliina 1200 bay ka koobnaayeen, 1200. fasaara lahum waxaa u sugnaaday ayaguna 12 sahman, 12 qaybood. 12 sahmi baa u sugnaa. wa kaanat khaybaru, khaybar waxay ahayd haniimatan, haniyatan dheh, mid hani ka ah oo taajir ka ah, bitamri, timir, iyo طacaami, طacaamka, cuntadii ee ahayd. qaalat caaishatu, caaisha waxay tiri radia allaahu canha, lamaa markii futixad la furtay khaybar, qulnaa waxaanu nidhi al'aana hadda ayaa nashbacu ka dhargaynaa min atamri, timir haddaan ka dhargaynaa allaylehe. bacdamaa khaybar ay caan ku ahayd timir, yuhuudna gacantu ay ugu jirtay, haddana laga faramaroojiyey, allaylehe haddaanu timir ka dhargnay bay tiri caaisha. waradda almuhaajiruuna, nimankii muhaajiriinta ahaana way celiyeen ila alansaari, ansaar baa waxay u celiyeen manaa'ixahum, manaa'ixdoodii, geedkii ay ku maasheen. manaaixda sideeda waxaa la yidhaahdaa rin markay dhasho cid baa la siinayaa, caanaheeday soo cabayaan ilaa ay gurto, ridii bay soo celinayaan. marka geeda timireed la siiyeyoo dheersada la dhahay, laakiin jiriddooda aan la siinayn, mirihi ay ka cunayaan keliya. markii khaybar la furtay, timirna laga dhargay, way u celiyeen. midha nakhiili ee timirta ahayd, macnaha manaa'ixahum, geed ismaalintoodii oo min annakhiili, timirta ayay celiyeen. bacdamaa rajacuu, markay ka soo laabteen kadib, min khaybara ila almadiinana ay u soo noqdeen. shaatun masmuuma, ri sumaysan, ridii la sumeeyey. wa bacdamaa caada alhudow, deganaantii markay soo noqotay kadib, wadahaba alkhawfu, cabsidiina ay baxday, caada alyahuud, yahuuddu waxay u laabteen ilaa khubfihim, khabiifnimadoodii. weliga shar ma joojiyaan. kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah, waa niman bisi iyo qayaano iyo dhagar badan. haddeeraa la cafiyey, haddeeraa timirtii ka shaqay la yidhi, isla markii dhagar kalay maleegeen. fiiri, wabacdamaa caada markuu soo noqday alhudow, deganaantii, oo wadahaba alkhawfu, cabsidiina ay tagtay, caada alyahuud, yahuuddu waxay ku laabteen ilaa khubfihim, xumaantoodii. wa ta'ammaruu, waxay maleegeen calaa qadli الnabiy, nebiga dilkiisa sal اllah calayh wasalam. fa ahdow, waxay u soo hadiyeeyeen ilaa rasuuli illaahi, rasuulka xaggiisa waxay u soo hadiyeeyeen shaatan, ri masmuumatan la sumeeyey, ri ayadoo dhanba sun la mariyey ay markaa u keeneen. biwaasitati, waxay ugu soo dhiibeenay u soo mariyeen imra'ati salaam bin mishkam, ninka lagu magacaabo salaam bin mishkam, naagtiisa, oo axadi kubaraa'ihim, kuwooda ugu waaweynaa mid ka mida ah, xaaskiisa. ay ogaatay gabadhii anna rasuula allaahi, rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam, yucjibuhu, inuu aad u jecel yahay addiraacu, garabka ama tagoogta. diraaca waa tagoogta, inuu aad u jecel yahay ayay ogaatay.
fa akharad markaasay ku badisay assumma suntiibay fiihi tagoogtay ku badisay. tagoogtii ayay sunta xoog u marisay si markuu u cunaba horay khalaf uu ka dhaho uuna dhinto. allahu akbar. suntii ayay ku badisay. wa tanaawala minhu rasuuluullaahi, rasuulkii ilaahayna waa uu gaaray. wa tanaawala waa uu gaaray, nebiga wuu soo qabsaday rasuulkii. walaakahaa wuuna calaliyey. intuu goosaha iyo ilkaha ku qabtay yuu tagoogtii intuu goostay ayuu calaliyey. uma lafadahaa wuu tufay. alxamdu lilah. kadibna waa tufay nebiga. wa qaala wuxuu yidhi innahaa ayadu shaatun waa ri masmuumatun oo sumaysan. ri sumaysan waaye buu yidhi. wasa'ala almar'ata, naagtii baa la weydiiyey, iyo walyahuuda, yahuudiiba, idinka miyaa sun mariyey ridan hilibkeeda? faactarafuu way qirteen. haabay dhaheen. waa dad cajiib leh. bijariimatihim dembigoodiibay markaa qirteen. wa qaaluu waxay dhaheen, markaas alla maxaa idinku kalifay? waxay dhaheen qulnaa waxaan isnidhi in kaana melikan boqor hadduu yahay nastariixu minhu, aan ka istariixno. markuu sunta cuno qalaf ha dhaho, dhibkiisana aan ka istariixno. wain kaana nebiyan, nebi hadduu yahayna laa yaduru maba dhibaayaba, ilaah baa ka qaban doona. dad caqli badanna waa ahaayeen. nebi hadduu yahayna maba dhibaayaba. tii baa dhacday. facafaa canhu, waa iska cafiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam. inta aan siirada soo marayni waa cafiyey, wuu dhaafay. xasidaayuu yidhi, ninbaa seef u soo qaatay. man yamnacaka minii? allah asaa nebiga seeftii qaatay. yay kaa celinaayey? qofaan aad ahayn oo ii kaa celin kara ma jiro. markii ay timid oo arrintoy meeshaa maraysay, ma qiraysaa laa ilaaha ila allah? maya, iska bax. cafin ma ahayn. wax kale oo aan nebigu ka soo baranay inta badan ma jirto, ilaa qofkii cafintana ku joogi waaya, sii xadgudba, dib islaamka ku sii wada, oo markaa dagaal lagu qaadayay maahane. aad buu cafin badan yahay nebiga. sun uu calaaliyey oo ilkaha ku calaanjiye uu tufo alla ka qabtay naagtii samaysay iyo raggii amray, dhammaan uu iska dhaafay rasuulka. facafaa canhum, yahuuddii buu cafiyey iyo wa can ilmar'ati naagtii. uma intaa ka bacdi ina bishri ibn albaraa ibni macruur ninka lagu magacaabo maata waa u dhintay min ajli haada sunni, suntaa buu u dhintay. ila nebiguu la cunaayey, nebiga ayuu la cunaayey, asaga suntii buu ku dhintay. fa amara rasuulku wuxuu amray biqatli almar'ati, naagtii in la dilo. qisaasan baana loo dilaayey. cafintii cafi inuu ka laabtay ma aha nebiga, laakiin ninkaa dhintay sababtiisa qisaaskeedii baa loo dilay. istislaam ahlu fadag, reer ahli fadag is-dhiibidoodii waa qayb yahuudda ka mid ah. fadakun, fadag qaryatun waa tuulo oo fii sharqi khaybar, khaybar berigeeda ku taala. calaa bucdi yowmayn, 2 maalmood intii u jirtayna ka fog tahay. tucrafu alyowm, maanta waxaa loo yaqaanaa bixaa'id ayaa lagu magacaabaa. magacii fadag looma yaqaana maanta. wa kaana rasuuluullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad arsala mid u diray, muxaysat ibni mascuud ayuu u diray ilaa yahuudi fadag yahuudeedii. bacda wusuulihi, markii uu soo gaaray nebiga ilaa khaybar ayuu u diray ninkii muxaysat ibni mascuud ahaa. bax u tag buu yidhi, liyadacuuhum, si uu ugu waco ila alislaami, islaamnimada. islaamka ugu yeer oo bax u tagoo islaamnimada u soo sheeg ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam. fa abطa'uu calayhi, way ka daaheen inay islaamkii qaataan bay kadib dhaceen. falammaa samicuu, markii ay maqleen bifatxi khaybar, khaybar furashadeedii, daakhilahum waxaa galay alrucba, argagax, way cabsadeen. wa talabuu, waxay ka codsadeen nebiga an yucaamila bihim, inuu ula dhaqmuu kula mucaamalo mucaamalata ahli khaybar, ahlu khaybar mucaamaladoodii inuu kula mucaamaloodo. saasay markaa rasuulku ka dalbeen oo ay markaa ka codsadeen. mucaamaladaasay markaa ka codsadeen oo reer khaybar uu kula mucaamalooday, oo ah inay meesha ka shaqeeyaan, layskana joojiyo. faqabila daalika minhum, wuu ka aqbalay arrintaa nebiga.
fa kaanad waxay ahayd ardun dhul ardu fadeg duuladeeda khaalisatun mid khaalis u ahayd lirasuuli illaahi rasuulka alla sal alay wasalam. beeraha fadeg waxa ka soo baxa rasuulkii qaas u ahaayeen. yunfiqu minha wuxuu ka nafaqaynaya minha xaggeeda calaa nafsadiisa. wayacuulu wuxuu ka biilayay rasuulka sala allahu calayh wasalam. wayacuulu rasuulku wuxuu ka biilayay. wayacuulu macnaha rasuulku wuxuu naftiisana qaas bay u ahayd. wuxuu kaloo ka biilayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka biilahayay sagiira bani haashim, reer bani haashim kuwooda yaryarka ah. saqiiradooda ayuu rasuulku ka biilayay sala allahu calayhi wasalam, oo wuxuu ka siinayey wax allaala wixii nafaqo ah oo biil ah ayuu ka siinayey nimankii reer bani haashim ilmahooda. wayusawiju wuxuu uga guurinayay wixii meesha ka soo baxaa ayinhum kooda oo garoobka ah, oo kooda garoobka ahoo aan weli guursanin wuu u guurinayey. waadi lqura meesha la yidhaahdo. wasaara wuu socday rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam bacda khaybar kadib ilaa waadi lqura ayuu aaday nebiga. wadacaa wuxuu ugu yeeray ahlahaa ehelkeeda, wahum yahuud waayee, ila alislaami islaamnimuu ugu yeeroo kaalayo islaama wuu yidhi. falam yuslimuu ma aysan islaamin, walam yastaslimuu mana isdhiibin. kuwaan mana islaamin mana hoggaansamin. wakharajuu way soo baxeen lilqitaali, dagaal bayba u soo baxeenba, niman dhiiran waaye. waadilqura ehelkeeda way isdhiibeen, macnaha mana isdhiibin mana islaamin, laakiin dagaalaan rabnaayo noo soo baxay dhaheen. wabaraza waxaa mubaaraso codsaday oo u soo baxay minhum xaggooda rajulun nin, faqatalahu waxaa dilay ninka zubayr ibnu cawaan. zubayr ibnu cawaan ayaa dilay. uma intaa kadib aakhara mid kalaa soo baxay faqatalahu wuu dilay haddana. uma aalifun mid saddexaad baa soo baxay faqatalahu caliyun, caliyaa markaa dilay. waadi lqura wasaara wuu soo aaday oo wuu soo socday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bacda khaybar kadib ilaa waadi lqura buu u soo dhaqaaqay. waadilqura meesha lagu magacaabo. wadacaa wuxuu u yeeray uu ugu wacay ahlahaa ehelkeeduu rasuulku ugu wacay, wahum yahuudi waayee, ila alislaami islaamnimada. nebigu ma dhicin weligii inuu qof la dagaalamay oo khafli iska ohan islaamka loo bandhigin. intuu qofku dagaalka uu ku bilaabi lahaa wuxuu ku bilaabi jiray islaamnimada inuu qaato. waayo qofka dilkiisa faa'iida saa u weyn ma laha, laakiin islaamidiisa ummaddana anfacaysa, naftiisana markaa anfacaysa. wadacaa ahlahaa ahalkeedii, wahum yahuud waayee, ila alislaami buu ugu wacay. falam yuslimuu ma aysan islaamin, walam yastaslimuu mana isdhiibinoo ma hoggaansamin. wakharajuu way soo baxeen lilqitaali, dagaal bay u soo baxeen. wabaraza minhum waxaa u soo banbaxay xaggooda, waxaa u soo baxay rajulun ninkii mubaarisuu codsaday yaa ii soo baxaya buu yidhi. faqatalahu zubayr ibnu cawaan baa dilay. uma kadib aakhara mid kalaa soo baxay faqatalahu zubayr baa dilay. uma aalifun ki saddexaad baa soo baxay faqatala caliyun, cali baa dilay radia allaahu canhu. xataa qutila minhum ilaa laga dilay 11 rajulan 11 nin. 11 rajulan baa laga dilay 11 nin. kulamaa mar kastoo qutila laga dilo minhum xaggooda rajulun nin, daca albaqiyata inta soo hartay buu rasuulku ila alislaami islaamnimo ugu wacaya. subxaana allah. mid marka laga dilada intaan ka kale la gaarin wada islaama, waisdhiibuu ilaahay diintiisa qaatuu rasuulku leeyahay. mar kastoo mid laga dilo, kulamaa qutila mar kastoo la dilo minhum xaggooda rajulun nin, dacaa rasuulku waa u yeerayaa linafsihi albaqiyata intii hartay ila alislaami islaamnimadu ugu wacaya. wakulamaa mar kastoo sallaa salaatan salaad uu tukadana dacaahum ila alislaami islaamnimuu haddana ugu wacaya. 5 saad mid hadduu tugto
uu ka baxo waruu islaamuu leeyahay warhooy islaama intuusan tan kala tukanin xataa amsaw ilaa ay galabaysteen uma kadib hadaa wuu ku kallahay rasuulka calayhim korkooda falam tartafic ishams qoraxduna ma soo kor noqonin qayda rumxin waran in la eg xata inhazamuu ilaa ay jabeen subaxii buu ku soo kallahay haddana islaamnimaduu u bandhigay qoraxdiina kor ma soo noqon markay wada diideen oo ay dagaalkii soo galeen ilaa nebiga sal allahu calayh wasalam wuu ka guulaystay ayagiina ay markaa jabeen wahanima waxay haniimaysteen almuslimuuna muslimiinta maghaanima katiiratan haniimooyin fara badan uma ka bacdi talabuu waxay codsadeen an yucaamila bihim inuu kula mucaamalata ahla khaybar reer khaybar sidii loola dhaqmay faqabila dalika minhum waa ka aqbalay nebiga sala allahu calayh wasalam war sidii khaybarna yeel buy dhaheen haddaad naga adkaatoon jabnay hana rarin dheeraan idinkaga shaqayno waana ka aqbalay rasuulka sal allahu calayh wasalam musaalaxata ahli taymaa musaalaxadii ahlu taymaa lala galay wuu gaaray ila alyahuudi taymaa wawasala waxaa gaaray ilaa yahuudi taymaa tayma yahuudeedii akhbaara khaybar wafadak iyo waadi lqura intaba in cagta la mariyey iyo wixii dhex maray iyo sidii kuwaa la yeelay ayaa gaaray fasaalaxuu way la heshiiyeen calaa dafci iljizya anaga cashuuran dhiibaynaa bay dhaheen haba nagu soo degdeginba annaga meesheena hanala ogolaado hanala daayo jizya cashuuraan dhiibaynaa wamakafuu waxay ku nagaadeen fii bilaadihim beledkoodii aaminiina ayagoo aaminiin ahoo layska nabadgeliyey ayay meeshoodii markaa ku nagaadeen zawaajuhu guurkiisii sala allahu calayhi wasalam nebiga iyo wa binaacuhu la aqalgalkiisii bisafiyata safiya uu guursaday uu mehersaday uuna la aqalgalay walamaa markii jucilad la yeelay safiyata binti xuyay bin akhdab fi sadyi qafaalkii markii lagu daray ileen dumarkii lasoo qafaalaa safiye ay gashay ninkeedii kinaanana waataan soo tilmaaneen la dilay aabbaheedna wuxuu ahaa xuyay ibnu akhdab oo sayidkii khaybar buu ahaa isagana waa la dilay gabadhii marka waa la soo qafaalay akhadahaa dixya qaatay nin saxaabada ka mid ahoo dixyo la yidhaahdo yo intuu rasuulka u yimid rasuulkii allah naagaa rabaayo hal gabadh iga sii buu dhahay gabdhaha lasoo qafaalay wuu mutaystay waa shaqaystay gal buu dhahay nebiga xeradee markaad gasho xerada mid baad doonta kala bax buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu galay safiya gabar aad u qurux badan bay ahayd way dhalaalaysay saas markuu u galayba iyadaa ku dhacday asaa soo qaatay marka akhadahaa waxaa safiye qaatay dixyata bin khaliifa alkalbiya ninka lagu magacaabo biidni rasuulillaahi buu ku qaatay inuu iska qaatay ma ahee nebigaa fasaxay sala allahu calayhi wasalam walamaa markii jucilad la yeelay safiyata binti xuyay bin akhdab fi sadyi qataalkii lagu soo daray akhadahaa dixyata bni khaliifa alkalbiy baa qaatay biidni rasuulillaahi buu ku qaatay sala allahu calayhi wasalam faqaala asaxaabatu saxaabadii waxay u dhaheen lirasuulillaahi rasuulka allah sala allahu calayh wasalam innahaa laa tasluxu uma bannaana mana ku fiicna inuu qaato safiya ilaa laka adi maahane gabadhan waa quruxley kow ta labaad nin madaxna wuu qabay ta saddexaad nin madaxna wuu dhalay haddii dixyo loo daayo dhibaataa imaanaysaa saxaabadii oo kala dhan dhib baa meeshii ka dhacaya laakiin adi haddaad qaato rasuulkii allow qof kasta wuu qancayaa saasay markaa yidhaahdeen biidni rasuulillah buu ku qaatay faqaala asaxaabatu asxaabtii waxay u dhaheen lirasuulillaahi rasuulkii alle sal allahu calayh wasalam innahaa safiyo laa tasluxu uma sulxato ilaa laka adiga maahane innahaa ayadu sayidatu qurayda iyo wanadiir reer quraydo iyo reer nadiir sayidadoodii waaye nin madaxana wuu qabay nin madaxana markaa wuu dhalay marka rasuulka allah adiga qaado macno kalaa suuragal ah
inay ula jeedaan gabadhan gabadha sayidaaha bacdamay ahayd. nin caadi haddii layska siiyo way niyajabaysaa. inaysan islaamin xataa waa suuragal. laakiin adi haddii aad la wareegto inay niyadda u dhisanto oy wax badan ku ilowdo oo xataa ay islaamtaa suuragal ah, taasna waa suuragal inay ula jeedaan. inahaa sayidatu qurayda waannadiir. fadacaa biha wuu u yeeray rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam safiya wa carada calayha alislaam. islaamkii buu u bandhigay faaslamat way islaamtay. faactaqahaa waa xoreeyey nebiga watasawajahaa waana guursaday. wajacala cidqahaa xoraynteedii buu uga dhigay sadaaqahaa meherkeeda xoraynteeda markaa uu ahaa. dixyana waxaa la yidhi dixyow gabadha ku sii daa xerada, tu kala baxso. tu kala loogu bedelay. safiyana nebigaa guursaday sala allahu calayhi wasalam markay islaamtay kadib. wajacala cidqahaa xoraynteedii buu ka dhigay sadaaqahaa meherkeeda. wa aslamahaa waxaa la islaamay ilaa bacdi annisaa'i. wa aslamahaa dhe wuxuu u dhiibay nebiga ilaa bacdi annisaa'i naagihii qayb ka mid ah, say ugu soo qurxiyaano loo soo cilaamo. ilan gabadha aroosadda ah dumar baa loo dhiigaa. kolkaasaa waxay ka soo dhigaan waxaysan ahaynba, 7 beri wax ka baaba ay ka soo dhigaan. sidii baa marka loogu dhiibay. falamaa markii tamma ay taam noqotay lahu rasuulku ay u dhammaystirantay fatxu khaybar furashadeedii, wa waadi qura iyo waadi qura, wa ataaca lahu ay ateeceen ahlu fadakin iyo wataymaa. akhada wuxuu guda galay fii cawdatihi inuu u soo laabtay ila almadiinati magaalada madiinuu u soo laabtay. xataa idaa kaana markuu soo gaaray bisadi sahbaa meel la yidhaahdo, bisadi sahbaa xallad xalaalna ay noqotay safiya. xallad macnaa dhiiggii uu ka go'ay, caada haysaye ee caadadii iyo dhiiggii ka xalaal noqotay ka qubaysatay. fazufat ilayhi waa loo soo gelbiyey. nebiga waa loo soo gelbiyey asagoo jidka ku sii jira sala allahu calayhi wasalam. fa asbaxa wuxuu ku waabariistay nebiga caruusan asagoo aroos la ah biha ayada, asagoo la aqalgalay waddada dhexdeeda aroos ku ah. wa awlama wuu u weliimeeyey calayhaa korkeeda, oo weliimadii aroosku ayuu sameeyey bixaysin xalwad oo min altamri waalaqati iyo wasamni intay markaa isugu jirtaa. xalwad laga sameeye timir, caano fadhiya, caana boore iyo subag aad bay markaa umada intaa marka laga sameeyo. xalwadaasuu ummadda uga dhigay rasuulka xafladii arooska. wa aqaama wuxuu kula nagaaday 3 ayaamin 3 maalmood. ilan waa garoode. yabnii bihaa uu markaa la aqalgalayay, uu kula aqalgalay 3daa maalmood. uma intaa kadibna saara wuxuu soo socday xataa qadima almadiinata ilaa madiina uu soo galay fii aakhiri shahri safar, bishii safar aakhirkeeda, aw fii shahri rabiici alawal ama bisha rabiici alawal oo min sanati 7 hijiriya, sanadii 7aad ee markaa hijrada ah ayuu magaalada madiina markaa ku soo noqday. taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa markii xaasaska nebiga ay maqleen gabar buu soo guursaday, wuuna la soo socdaa. naag marka naag lala guursa laba meel bay ka fiirisaa, ma ka qurux badan tahay iyo ma ka yar tahay. waa labadaas soomaa dumarow, labadaas meelay ka fiiriyaan. haddii aynan ka qurux badnayn aynana ka yarayn waxba uma arkaan. haddayse ka yar tahay amase ay ka qurux badan tahay masir fiican baa markaa bilowda. gabdhihii saxaabiyaadkii nebigu qabay waxaa la yidhi bannaankay soo tagteen, balse ay u arkaan safiya oo nebigu uu soo wato say markaa u eg tahay. markii magaalada ula soo galay bay taariikhda qayb tilmaantaa. faraskii baa la turunturooday marka nebiga geeli wixii meeshii ay saarneed. gabadhii marka dhulkay ku soo dhacday. dhulka markay saa ugu dhacday macsakur bay dhaheen. wabilaahi towfiiq, wallaahu subxaana wa tacaala aclam.